haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kufsiga oo sii badanaya xilligan COVID-19 uu faafay Soomaaliya. Waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf. daraasad ay samaysay hay'adda UNICEF ee sanduuqa badbaadada carruurta bishii hore ayay ku ogaatay inay kor u kaceen xadgudubyada jinsiga ku salaysan sida kufsiga ee loo geysanayo carruurta Soomaalida ah tan iyo intii cudurka coronavirus lagu arkay dalka. Daraasadda ayaa lagu sheegay in xiritaanka iskuulada iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday iyo weliba helitaankii cuntada oo yaraaday iyo dakhligii soo geliyay qoysaska oo isna hoos u dhacay inay halis u keenayso carruurta. xilliga daraasadan la sameeyay ayaa ahayd intii u dhaxaysay 9 ilaa 15 bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. waxaana sameeyay qaybta ilaalinta carruurta ee UNICEF. waxaana lagu eegayay saameynta carruurta ay ku yeesheen xayiraadaha la soo rogay cudurka COVID-19 awgeed. qaabka daraasadan loo sameeyay ayaa ahayd in su'aalo la weydiiyay 35 hay'adood oo isugu jira 23 hay'adaha aan dawliga ahayn ee maxalliga ah, 10 hay'adaha aan dawliga ahayn ee caalamiga ah iyo 2 hay'adood oo dawli ah. natiijada ka soo baxday daraasadani waxa iga waramay oo barnaamijka galka baarista uu ka wareystay Brendan Ross oo ah madaxa ilaalinta carruurta ee UNICEF Soomaaliya. We did find that 36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It's unheard of. waxa uu yiri waxaan ogaanay in 36% hay'adaha iskaashiga nala leh ay soo gaadhay koror ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku salaysan jinsiga. waxa uu yiri mid kamid ah hay'adaha iskaashiga nala leh waxay arkeen 13 qof oo la kulmay kufsi muddo kooban dhexdeed, kuwaasi oo yimid xaruntooda. waa arrin aan hore u dhicin ayuu yiri Brendan Ross. waxa uu intaas ku daray in 57% hay'adaha qaabilsan ilaalinta carruurta ay soo tabiyeen inuu kordhay gacanqaadka. in badan oo ka mid ah waxay ka dhacayaan ayuu yidhi guryaha iyadoo dadka daryeelkooda haya iyo kuwa qaangaarka ah ee kula nool guriga uu la soo darsay cadaadis ama dhib ka haysta sidii ay anshaxa u marsiin lahaayeen carruurtooda. Brendan Ross waxa uu intaas ku daray in gaar ahaan arrintani ay saameyn halis ah ku yeelatay gabdhaha. sidaasi darteed ayuu yidhi 23% hay'adaha iskaashiga nala leh waxay soo sheegeen in gabdhuhu haatan ay qabanayaan shaqooyinka guriga sida biyo dhaaminta, cunto karinta, gurista xaabada, nadiifinta guryaha iyo dhardhaqista si ka badan intii hore. waxa uu yidhi waxay si ka badan intii hore halis ugu jiraan in looga faa'iideysto ficilo galmo ah iyo xadgudubyo kale sababtoo ah saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca ka yimid tallaabooyinka loo qaaday COVID-19 darteed. Disciplining their children and so forth. So we're seeing an increase in corporal punishment largely in that area. kasoko haddaba dhibaatooyinka iyo xadgudubyada kala duwan ee lagu xusay warbixinta UNICEF waxaa dhinaca kale toddobaadyadii u dambeeyay sii kordhayay tacadiyada kufsiga ah ee lagula kacayo gabdha ay ku jiraan carruur aad u da'yar. mid ka mid ah kiisaska ugu xanuunka badan oo bulshada argagixiyay waxa uu ka dhacay duleedka degmada Afgooye kadib markii la afduubay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir 30 bishii Maarso ee sanadkan. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dad loo soo qabtay welina la baarayo. Nuurta Ibraahim Xaaji waa hooyada gabadha 3 sano jirka ah ee ka mid ahayd 2 gabdhood ee lagu kufsaday duleedka magaalada Afgooye. gabdhahaasi loo galay islaam uma qarabteeka intii shahaadinaysa dad isaqeerar ah oo sadacde oo kufsanaayo noloshayna ma arkin ilaahay waxaan ka tuunayna cadaalad ilaahay saara insha Allah. intii aan ku jira xog ururinta barnaamijkan waxaa kaloo soo gaadhay in kufsi cusub loo geystay gabar 4 jir ah 14 bishan kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho. sidoo kale bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay 7deedii ayaa kufsi uu ka dhacay meel u dhow degmada Janaale waxaana lagula kacay 2 gabdhood oo midkood tahay carruur. 2 gabdhood waxay sheegeen inay kufsadeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo qabsaday iyagoo ka soo laabtay suuqa caanaha ee degmada Janaale oo ay caano u iibgeeyeen. 2 askarina waxaa la sheegay inay dafirsan yihiin dambigani baaritaanna uu socdo. Xasan Cabdi Maxamed waa wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed. deegaanka Janaale oo isna gobolka Shabeellada Hoose waan ognahay in waqti dhow ay xoreeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM dabcan wada socda ka saareen dadkii dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayay al-shabaab
iyana waxaa ka dhacday dhacdo hore baan ooga hadalay dawlad ahaan oo aad u qaadarnayd oo iyana 2 hablood oo reer miyi ahaa magaaladana soo aaday oo ka dukaamaysanay ama howlo ayaga u gaara u yimid in inta dhaxda loo galay iyana la kufsaday markiiba waxay xogta la wadaageen hay'adaha amniga oo ku sugan deegaankaas markii ay xog wareysteen ama informationadii laga aruuriyay markiiba hay'aduhu si wanaagsan bay u howlgaleen waxaana caddaatay tilmaamihii ay gabdhaha bixiyeen raggii kufsaday markii la sii dabagalay inay noqotay dad magaca ciidanka qaranka Soomaaliyeedna sharaftooda meel ooga dhacay laakiin ciidanka ka tirsan inay ahaayeen isla markiiba ciidamada qalabka sida gacanta ay ku dhigeen waxaana loo gudbiyay magaalada Muqdisho iyadoo wasaaradda gaashaandhiguna ay si rasmi ah u shaaciso u ogolaatay in raggaas gacanta lagu hayo maxkamadda ciidanka qalabka sidana la horkeedi doono mas'uuliyiinta Soomaalidu waxay qireen inay haystaan caqabado dhinaca baaritaanka kufsiga ku saabsan ayna ugu weyn tahay in dhibanayaasha kufsigu aysan in badan oo kamid ah bixinin xogta waxa ku dhacay ama ay dafiraan tusaale ahaan mas'uuliyiintu waxay sheegeen inuu jiro kiis ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose balse baaritaankii caqabad lagala kulmay sababtoo ah dhibanaha oo diidan inay hor timaado mas'uuliyiinta baaritaanka sameynaysa Ifraax Axmed waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadanaha gaar ahaan tan haweenka iyo carruurta Ifraax Axmed waxay sheegtay in kiisas badan oo kufsi ah ay iska baaba'aan iyadoo aan cadaaladda la fulin gabara la kufsanaya maxkamadda marka dacwada qoranaysa gabadhii waalidkeeda soo raacayo ninkii wax kufsaday waalidkiisa soo raacayo maxaa la yiraahdaa mararka qaar waxaa arkay in kitaabka quraanka lagu dhaariyo ninkii dhibaatada geystay oo ku dhaartay inuu gabadhan wax ku sameeyo taasna waxay keenaysaa dhibaatada gabadha kalsoonida waxa ka dhumayso inay dacwadeeda sii wadato amba in ay tiraahdo ninkan dhibku iige sababtoo haddii ninkii kutub lagu dhaarinayo gabadhan cadaalad ma helayso maalin waxaa xasuustaa sanadkii hore waxay ahayd bisha afraad gabar yar oo 16 jir ah nina kufsaday nin weyn ah walaalkeeda la socday walaalkeed iyo ninka wax kufsanaa isku day ahaayeen maxkamadda ilaa kutubka ninka gacanta looga geliyahay waa fadhiyeen marka wax jira waay laakiin si cadaaladii waxaa la rabaa in qofka sharciga si sax loo marsiyo waxaa arkay haddana waalidiin oo marqana wiilkooda wax kufsaday oo dhaqaale haysto oo cambicidii lacag siinayso oo maxkamadda maalinta dambe markay soo noqdaan markay imaadaan waxay yihiin waa heshiine ay arrinta soo loo xaliyay tan kale waxaa arkaysaa dad mataqaanaa maadaama minority majority leeyahay dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas dacwadiina ma soconayso marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna raadsanin cadaalad haddaa dhahday gabar maxaa maxkamad u aadi weysa amba u dacweyn weysid waxay ku leedahay wadankan ma qof wax ii qabana iska jira dad badan aniga oo wareysi ka qaaday oo xitaa aan ku arkay dad soo tahriibay oo la sheekaystay waxa u weydiiyay maxaa u soo tahriibtay waxa ku leeyahay aan dhibkaas ugu soo dhacay maxasaas u sameeyay booliisku u tagay u dacwoweys yaa wax ku sameeyay lagu leeyahay hadda qabiiliyada soo jeeday waa lagu liidaa hadda lacag haysanin qofku dooday malaha marka wax badan celinayo gabadhii inay dhibaatadeeda ay sheegato dhinaca kalena waxaa jira kiisas kooban oo ay maxkamaduhu go'aan ka gaadheen sida kiiska Caashe Ilyas oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Gaalkacyo kadibna garsoorka Puntland ay dil ku xukumeen raggii ka dambeeyay kufsiga iyo dilka Caashe Ilyas bishii Febraayo ee sanadkan ayaa dilka lagu fuliyay 2 kamid ah 3 nin ee lagu helay kufsiga iyo dilkaasi iswata sidoo kale mid kamid ah kiisaska ay maxkamaduhu go'aanka ka gaareen waxa uu ka dhacay gobolka Baay gaar ahaan magaalada Baydhabo kiiskan ayaa dhacay 31 bishii Janaayo ee sanadkan waxaana askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Baydhabo isagoo hubeysan uu qabsaday gabar 30 jir ah askarigan ayaa baaritaanka lagu ogaaday inuu yahay xaasle leh 2 carruur ah taasi oo sii murjisay kiiska hase yeeshee garsoorka magaalada Baydhabo waxay askarigaasi oo 22 sano jir ku xukuntay dil toogasho ah bishii Febraayo ee sanadkan hogaamiyaasha la dagaalama xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo carruurta guud ahaan waxay dalbanayaan sharciyo adag iyo in baarlamaanku ay ansixiyaan sharciyada la dagaalanka xadgudubka galmada waatan Ifraax Axmed oo u dooda xuquuqda aadanaha marka ugu horeysa waxa aad ugu xumahay in mataqaanaa baarlamaanka xildhibaanada maanta baarlamaanka fadhiyo inay kalsoonideen ay ku fadhiyaan
ma ahan inay mataqaana kalsooni qabiil ay meesha ku joogaan. waxay meesha u joogaan waa shacabka. sharciga sexual offense bill-ka amba sharciga kahortaga jinsiga wuxuu yaalaa baarlamaanka. golaha wasiirada waa soo ansixiyeen. baarlamaanka waxaa looga ansixi la-yaana waxay tahay maadaama oo lagu kacay markii oo genderka laga hadlayay culimmada ay ka wada doodeen, baarlamaanka waa ka aamusay. xildhibaano iyo senator aan la fariistay oo mataqaana aan ka wada hadalnayna waxay yiraahdeen gudoomiyaha oo baarlamaanka ajendaha marabyo inuu kusoo daro sharciga in laga doodo marabyo. sababta ay tahayna wuxuu yiri culimo diinka ka cabsana. haddii culimada ka cabsanayo culimada inuu la fariisto waay. sababtoo maanta nolosha gabdhaheena ama mustaqbalka gabdhaheena waxay gacanta ugu jirtaa waa xildhibaanadaas baarlamaanka fadhiyo iyo gudoomiyaha baarlamaanka. sababtoo ayaga haddii sharcigaas maanta oo la ansixiyo haddii xitaa wax weyn oo u qabanin maanta haddii la yidhaha Soomaaliya sharciya jiro oo ka hortagayo tacadiga ninkii dhib ka sameeyay oo iqaabtiisa maray nin walba uu cabsanaa. laakiin sharcigiiba waxaa la iska gashtay miiska hoostiisa. gudoomiyahana waa ku cambaareen taas been ma ku sheegay. sababtoo dhowr mar la yiri ajendaha kusoo dir rag iyo dumar oo xildhibaano ah u ololeynayay oo rabeen in ay mataqaana oo lagu soo daro ajendaha. xitaa waxay ii sheegeen haddii 10 xildhibaan ay isku raacdo in ay mooshin ka keenaan in la helo sharciga in oo debate laga sameeyo amba dood laga sameeyo inay suubin karaan. sharciga wuxuu nagu caawinayaa oo keliya in dadka dulliga ee dhibaatada geysanaya ay ogaadaan sharciga oo jiro oo sharcigaas lagu dhaqmayo. marka culimada in la fariisto lala doodo oo mataqaana sharcigan sida ugu dhaqsiyaha badan la meel mariyo aan dawladda Soomaaliya ugu baaqayaan. sababtoo waxa way aan qof dumar ahay hooyo ay dhashay aabbaay dhalay ayaa ay joogto habriir ay joogto eeda ay joogto nin wal baarlamaan ku jirno hooyaa dhashay ilmo dhalo waxa uu joogo maxaa la yiraahdaa ayaa uu joogto ayaga inay ku fikiraan naftooda, hooyadooda, walaashooda, habriirtooda, ayeeyadooda ay fiiriyaan dadka masaakiinta maanta dhibaatada ay ku dhacayso oo cadaalad darada ay ku haysato dalkeena oo maanta xisbitaaladii ay lacag u haysan ay ku daaweystaan gabdhahooda oo dhibaatada loo geysto. galka baaristu waxa uu la xiriiray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana uu ii sheegay in sharciga la dagaalanka xadgudubyada galmada iyo kuwa jinsiga ku salaysan uu ku jiro ajendayaasha ugu horeeya kalfadhiga soo socda ee baarlamaanka Soomaaliya. dhagaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaan barnaamijkan ku marti qaadnay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka Soomaaliya balse ilaa haatan aysan ka soo jawaabin codsigii barnaamijka galka baarista.